Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Maantana waxaan wadaa muuqaal cusub. Muuqaalkaas wuxuu ku bilaaban doonaa diyaaradda gudaheeda waxaa ku dhex jira dooraha iyo man wada badan oo rakaabkaas gudihiisa, balse ha ahaatee waxaa jira nin ku hadlaya taleefan oo buuq ku dhalinaya diyaaradda dhexdeeda. kadib doorahii ayaa soo kaca, wuxuuna ka qaadaa ninkii taleefanka, kadibna waa uu kala jebiyaa sabab isagoona sii weydiin. wuxuu siiyaa card business been ah oo isagoonan haysan wax lacaga, isagoo ah shiid, isagoo u safraya magaalada Chicago. kadib ninkii China marka la siiyay tigidhka ka iga soo wacaya lagu dhahaa. haddaba asxaabi aan guda galna filimka. wuxuu ka hadlayay sheekadiisa ama qisadiisa dhabta ah filimka gudihiisa. filimkana Tooro wuxuu ku saabsan yahay inuu filimkana Tooro ka dhex arki doono dhalada khamrida, waxa la yaalo, waxa dhacaya ama waxa ku dhacaya ama waxa isaga ku soo socda dhammaantood uu ka dhex arki karayo dhalada khamrida. xaaskiisana ay aad u neceb tahay in khamrida uu cabo, kadibna xaafadiisa ay ka wada saarto wax la yaalo, wax khamri yaalo dhan ay meel ku wada gurta ayna ka daadiso, balse isaga aad ayuu aqli badan yahay oo wuxuu dhigtay daaqada agteeda khamrida qayb yar oo ku kooban oo sanduuqa kale ah ayuu halkaa gashtaa khamrida si ayna xaaskiisa uga daadin uguna darin waxay daadinayso. balse isaga waxa uu la sii baaraan degay inuu wuxuu ogyahay markuu cabo khamrida inuu ka dhex arki karo waxa la yaalo, wax isbedel ku dhacaya dhulka ama cirkaba. say sheegayaan kulli waa quraafaad, laakiin filimka dhexdiisa say ku jilayaan ayaa sida ah inuu Tooro wax walba ka dhex arki karayo. kadib wuxuu iskugu yeedhayaa asxaabtiisa oo dhan isagoo cabsan. wuxuu ku dhahayaa waxaa jirta meel la dhaho qariirad uu ku badan yahay dahabka oo dhan oo ku taala dalka Ciraaq. dhulka dhexdiisa waxaa ku yaala dahab aad u fara badan, balse waxaa ku heshiiyey buu ku leeyahay 3 nin, kaasoo ah janaalkii ciidanka haystay iyo madaxweynihii iyo ra'iisul wasaaraha. 3 ayaa ku heshiiyay ayuu dhahaa, iyo kan welibana ka ra'iisul wasaaraha Shiinaha dhexdiisa ayuu dhahay isagu. balse waxaasoo dhan ka gudub, waxaasoo dhan waxaa la dabaaldegaya buu yiri oo lacagta dhan ka wada qaadi doona waa aniga. kadib 3 nin ee dahabka haysatay, nin walba dahabkiisa dhulka ayuu ku aastay. wuxuu yiri ha ku bato oo geed ayuu dul saartay, laakiinse wuxuu yiri ma ogaayagu in la og yahay oo aanu ogahay si aan anigu ogahay inay ayagu u ogyihiin. balse waxaa jirta uu ku leeyahay ra'iisul wasaaraha China ayaa u soo dira manaan military oo ciidan ah. kadib waxa uu soo dira 3 nin. 3 nin waa la kharajiyaa oo halkaas ayaa lagu dilaa, balse hal qof ayaa ka nool. ninkii haystay sultaanka ahaa lacagtiisii hal qof baa og meeshii taalo, intooda kale waa la helay lacagtoodii. halka qof ee sultaanka lacagtiisa meeshii taalo aniga kaliya taayay og ayuu isku soo dhaadhiciya, waayo cid kale ma ogo, anigu baa og. asxaabtiisu ay aamin waayeen, waxay dhahaan sabab baad ku heshaad waxaasoo lacaga. wuxuu dhahaa anigu waxaan ahay nin aad iyo aad maalqabeen oo taajir ah, waayo waxaan ahaa buu ku leeyahay ninkii militariga ahaa ee la diray ayaaban anigu ahaa. sababta darteed ayaan ku ogaaday. been ayuu ka dhaadhicinaya, balse ninkaas waxaasoo dhan ma haysto oo waa shiid. waxaa loo haystaa kirada guriga iyo kirada biyaha, kirada leerka, intaba adhiin waa loo wada haystaa. waxaa la leeyahay keen lacagtii. wuxuu ku leeyahay waxaasoo dahabay meesha yaala, anigoo unba og. dahabkii uu soo baxay saxaraha dhexdiisa ayuu ka soo baxay uu dhahaa, waa ninka keliyata dul tagay ee dahabkaa soo baxay u tagay aniga keliyata ayuu ahaa ayuu ka dhaadhiciyay asxaabtiisii. balse way ku wada qoslaan oo ay isaga maba ogaba waxay yihiin. wuxuu yahay ay wada aaminsan yihiin dhammaantood oo cid aliyaala cid aaminaysa ma laha. mid saaxiibtiisa ka mid ah ayaa iska aamina, kadib waa uu saxbiyaa, kadib way la yaabtaa sabab bay ku dhacday ayuu dhahaa. kaasay tiraahdaa ma aaminsan wuxuu sheegaya, balse waa iskaga sabciyey oo kaliya. laakiin waxaan kuu sheegayaa oo kale in uu ka dhex arki karayo dhalada quruurada qof waliba wuxuu niyadiisa ku jira inuu ka dhex arki karayo. bal aynu wada daawano sida uu uga dhex arki karayo qof walba quruurada ku jira waxa dhacaya ama waxa ku dhacaya ama waxa niyadiisa ku jira. bal ila yar eeg ilaa 5 daqiiqo.
isku soo noqod wanaagsan asxaabay dhammaantiinba waxaan ii sheegayaa inuu ahaa toorihii in ninkii wax ka dhex arkaya khamrida oo dhani balse ha ahaatee toorahani waxa uu leeyahay saxaabaad fara badan balse ma oga inay cadowgiisu ku kala jiraan intoodaba waayo wuxuu qiyaastaa keliyata inuu ku dulqabto qararada oo uu eego qofkaasi balse waxa ku soo biirtay gabadh kale waayo ma oga ninkan inuu aabba yahay uu iska yahay dee reer family leh waayo iskaga qabsanaysa xilliga waxa lagu amraa in iyada ay la cabto khamrida gacanba gacan isa u dhexgeliso kadibna ay la cabto isagu waxa uu la wareegaa baa la dhahaa meel weyn oo ah dabaqaad ballaaran kaasoo la wareegayo dhismihiisa dhammaantii laakiin isaga ma ogo inay cadowgiisa oo dhan halkaa hoostiisa ay ku wada degan yihiin oo ay gamaad ka dhigtaanba halkay qaayimiintu ay wada degan yihiin oo dhani inuu ka talin doono isagu ma ogo ha ahaatee toorahani waxaa loo dhigi doonaa dabinkaasoo ah inuu habka uu lacagtan ku helayo waxaan oo dhan waayo asxaabtiisa qayb ka mid ah ayaa aaminsan inuu helayo waxaasoo lacaga oo dahaba uuna welibana ka soo qaadan doono dalkaasi Iraaqa uu u doonan doono oo uu yahay ninka keliya og in dahabka halka uu ku aasan yahay dahabkuna uu soo bixi doono cid kale aliyaale cid kale ma ogo ayay dhahaan ayagu balse wuxuu la wareegaa gabadha yarayda waxayna ka shaqayn doontaa gabadhaasi halka uu khamrida ka cabayay oo iyada ayaa ka noqota qaybta maamulaha ee managerkeeda dhan ayay noqotaa isaga saaxiibkii ayaa damaanad ahaan loo haystaa oo la aftuubtaa kadibna waxa uu sheegaa ciidanka uu sheegi waaya saaxiibkii waxa la yeelay waxa uu ku xukuman yahay oo dhani kadib waa laga qariyaa waxa uu u sheegaa isaguna inuu aad xilli xun ku jiro saaxiibkiina halkii hoose ee dabaqa ayaa lagu kharijiyaa waayo cid aliyaale cid ogeyd ma laha inuu halkaa ku jiro waxaana loo haystaa isaga 300,000 ugu yaraan waxaa lagu dhahaa si fudud noogu sheegay ama haddii kale waxaan ku siinaynaa 20,000 euro oo aad sidaa ku qaadato kadibna aad iskaga tagto wuxuu dhahaa ma rabo waxaan rabaa 1 milyan kadib waa lasii weydiiyaa haddana wuxuu dhahaa 10 milyan ayaan doonayaa inta ahaan damaanad ahaan isiiya haddaydan isiin karaynina iska badaaya gabadha yareed markii loo soo bandhigay inay noqoto managerka qaybtan kafeteriyada ee khamrida waxay ogolaataa iyaduna inay halkaa ka aqbasho oo ay ogolaato ay ku soo biirto qaybta kooxdan kadib toorihii aad ayuu la yaabaa waxa uu dhahaa ma waxaan ku helayaa dhowr daqiiqadood 10 milyan kaasee ku tiraahdaa may kuma helaysid waxaad ku heli doontaa in ka badan 10 bilyan ayaad heli doontaa kadib waxa uu ku yiraahdaa ma waxaa jirta cunto si free loo geynayo oo delivery mayuu ku dhahaa waxa ku jira halkan keliyata waxaad ku jilaysaan intan keliyata ka shaqaynaysaan waxaadna helaysaan lacag intaas waxa uu iska noqonayaa qof taajira balse laakiin isagoo xumahayo tooru waa iska biiqa oo waa shiid jeebkiisa la ogyahay kadib waxa iska saadaalinayaa meel kale waxa uu dhahaa markaan Iraq qaado dahabka soo qaato waxa noqon doona qof aad iyo aad maalqabeena oo waayo waxa la wareegayaa waxa soo lacaga waana ku tashanaya anigu kadib waxa uu dhahaa may dahabka keen waxa lagu ballan qaadayaa 10 milyan kadib waxa uu dhahaa aniga 10 milyan iska tahay 10,000 xataa igama helaysaan waayo meel aliyaal meel wax ku ogaa ma jirto kadib toora la daba dhigtaa waxa la iskaga soo dhigaa qof indhoola waxana lagu dhahaa inta heshiis ma ku tahay waxa uu dhahaa may gruubka afduubayaasha drugska kuma beeri karayo waxbana igama qaadi karayaan waayo waxaan aaminsanahay inaan ahay anigu nin military ahaa oo hadda howlgabay oo hadda wax walbana og oo aan is aaminsanahay nafsaydu ayaan aaminsanahay ayuu dhahaa kadibna waxa lagu dhahaa waxaas waxba kama jiraan ee maxaad leedahay adigu kaasuu dhahaa may waxaan rabaa lacag intaa leeg ma doonayo waxaan rabaa inaan aad taajiru noqdo dabaqaan aan sii qurxiyo kadibna aan la wareego waxa ku dhahaa waad la kaftamaysaa waayo waxaas waxba kama jiraan kadib waxa la weydiiyaa sida saxda ee qiimaha uu sheegan karayo kadib waxa uu dhahaa ma sheeganayo waxa la yaalo waxa sheegaysan waa wax maala yacni iska laakiin se waxaan ii sheegayaa inaan u baahanahay inta qiimo ka yarna aan u baahnayn haddii aad siinayna iska badaaya tooru aad ayuu cadhooda waxaana ku dhahaa ma rabo waxaan ka doorbidayaa waxaasoo dhan isiiya inaan iska dhinto saaxiibkiina si cadbacad looga goynayo ayuu ku dhintaa kadib intuuna dhiman ka hor waa is yara badbaadiyaa oo waxa uu isdhahaa raggan iska difaac ayagoo waxooda waa maala yacni kadib buurtii qasabadii lagu xidhay ee fumbada ahayd ayuu soo jabsadaa kadibna waxaa la isku daya in caadi loo dilo balse waa uu ka yar fakadaa caadi ahaantii isagaa tooraa meel xun ay ku dhintaa سأمي أطورها مرة من يسحب كي يعمل حلو قلت له سووا حبوبين مركي أطورها ولا سحب كل اللي أنا عندها
saaxiibkii marka la dilo waxa uu bilaabaa inuu ka baxsan karayo kuwan oo uu ka carari karayo gruubkan draagiska kadibna waxa uu dhahaa may sidan wax macquul kale maaha waxaan u baahanahay anigu lacag intaa la eg haddaad dantan wada dili karaysaan ma idiin joogo ninkii idin maamulayay ee manajerka kadib waa iswada dagaalaan markay iswada dagaalaan kadib waxaa dhaca in atoorihii dabin ahaan loogu soo dhigo oo isagoo la dhaho oo lagu dilayaa ee intaa ma bixinaysaa si saaxiibkaa oo baxa kadibna isagoo ogba saaxiibkiina mar hore dhintay ayuu ciidanka kasoo dawaangeliyaa oo waxa uu dhahaa saaxiibkii waa la dilay ee maxay ku dhacday sababta loo dilayna cid aliyaala cid og malaha ee sideebay ku dhacday kadib waxa uu weydiiyaa in gruubka draagiska ay ka dambeeyeen waxaan oo dhan isagoo iska socda atoorihii ayaa dabin isagana loo yardhigayaa waayo ma afduuban karayaan isaga waxay rabaan inay ka dhigaan dilkiisii inuu ahaa dil shil kadibna waxa ay u korayaan dabaqa kadib isagoo hoosta ayuu maraya ay waxay kusoo tuurayaan bahalkan beeraha lagu beerto ee markay dhirta yar cusub tahay oo kale ayaa lagu soo tuuraya si madaxa uga dhaco kadibna la dhaho shil ayuu ku dhintay way ka diidaan iyadoo sidaas tahay isagoo dabinkii ku jira ayaa islaantii u haysatay kirada maahe islaantii u haysatay kirada guriga lacagteedii ayay ka rabtaa waxay ku dhahdaa lacagteediisii risidkii kuma siinin oo waxaan rabaa intaasoo lacaga kadib waxa uu dhahaa maadigiiba kadib waxa uu isku dayay inuu ka cararo isagoo cararaya ay naftiisa badbaadisaa oo kuleetiga ayay qabataa kadibna aad ayuu cabsadaa waxa uu dhahaa waxaad ii soo dhigtay dabin lacagtaada waan ku siinayaa iga hadh waxba ha isugu waayin waad iga helaysaa lacagtaada si bilaa damaanada kaasuu ku dhahaa may iyadaa ku tiraahda may waxaa kaama yeelayo waxaan kaa rabaa lacagtaydii kadib waxa uu isku dayaa inuu cararo wayna kasoo daba orataa iyadoo badbaadinaysa welibana naftiisa isaguna uu warka hayn ayay ku tiraahdaa waad dhimanaysaa seed wax u wataa may orda ayuu sii daaya isagoo iyada ka cararaya kadibna aad ayuu cabsadaa wuxuu ku dhahaa maxay ku dhacday wayna ka aamustaa kadib atoori waxa isku daydaa inay ku tiraahdo waxaan kaa rabaa dhowrkii bilood lacagtoodii waayo waxaan kaa rabaa inaad isiso si julmadahaana isagoo markaa ka maraataynaya waxaad isku dayeysaa inaad idisha aniga wuxuu ku yidhaahdaa waxaad isku dayeysaa inaad idisha aniga sababtoo ah inaad intaa idisho kadib waxay isku daydaa inay usoo saarto risiidkii ama inuu iska bixiyo lacagtii intaasoo dhowrkay cisho kadib waxuu isku dayaa atoori inuu iska cararo oo uu dhaho ma doonayo risiidka haddana ma qaadanayo inaan bixiyo markay tirada uu bilowdo ay tirado 5 ayuu iska cararaa atoori oo aad ayuu u ordaa kadib iyadoo cayrsanaysa ay naftiisa haddana mar labaad badbaadisaa oo way soo qabataa kadib iyadu way naxdaa wuxuu ku dhahaa waan rabaa rasiidka ee isi anigu waan iska cararayaaye kadib waa uu ka qaataa rasiidka waana iska tagaa kadib atooriye waxa uu noqdaa marka dambe qof maalqabeena oo wuxuu uu sheegayo dhan ayaa suurtagal u noqota oo wuu helaa dhammaantood intaba wuu isku helaa laakiin asxaabay waanu ku cusubnahay waanan yara shigshigaynaa saxaabay noo yar dulqaadka si aanu ula qabsano darteed asxaabay wax walba ayay nagu qaadan karaysaa waayo qofku markuu cusub yahay wax waliba ayuu ka sheekayn karayaa laakiin ahaatee si walba hadalkana yar dhibdhibaya ma aha si kale laakiin asxaabay waxaan ii sheegayaa in channelkana cusub yahay noona subscribe garaysaan wadna mahadsantihiin dhammaantiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu